بسم الله السلام عليكم كسو دواada Zainab Qaali Cookings waxaan maanta sameysanaynaa alaab yar oo dabiici ah oo timaha aan ugu talagalnay timaha gogo'ayaan maasha Allah waa flaxseed ama petrol kitaan haddii aad channelkeena ku cusub tahay fadlan subscribe kadibna gambaleelka si aysan kuu dhaafin waxa aan soo dhigno haddaad nala joogi jirtana waad ku mahadsan tahay daawashada iyo dhiirigelinta soo dhawaada walaalahayga qaaliga ah hadda waxaan dabka saaranaynaa petrol kitaankii marka hore biyo ayaan ku karinaynaa oo noo soo kara asxaabey saas ayuu u karayaa saad ogtiin asxaabey bahalka faa'iido badan ayuu leeyahay dadka gaaska oo kale way cabi karaan intay shiitaan caano ku shiitaan kulul madaxa waa lagu qurxistaa wajigoo kale maasha Allah timaha gogo'ayaan sida ayuu jeel u noqday jeelka timaha siisiibanayaan salka hoose aad ka marinaysaa maasha Allah lagama sheekeyn karo waxaa kaloon sameysanaynaa maas aan ugu talagalnay wajiga oo aan ka sameeyay flaxseed ama petrol kitaan waan soo shiidaa asxaabey sida ula socda waan soo shiiday haddana waxaan ku qasayaa caano fresh milki daarabta waxaa ku qasan kartaa yogurtka baleenka ah hadda waan qasanaynaa wajigaada hadduu madmadow leeyahay daad haara iyo waxaa finankoo kale maasha Allah qurux iyo dhaldhalaal ayuu kaaga dhigaa wajiga sidaa ula socda walaalahayga sharafta leh haddana waxaan ku darayaa saliida olive maasha Allah lagama sheekeyn karo inaba caadi ma aha asxaabta sharafta leh waa walaashin Zainab Qaali oo idin leh like subscribe share la wadaag asxaabtaada wixii comment hoos noogu reeba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh